waxaa la filayaa saacadaha soo aadan in gebi ahaanba lasoo gabagabeeyo shirka maalintii shanaad uga soconaya magaalada muqdisho caasimada soomaaliya midooda musharaxiinta u taagan xilka madaxweynaha soomaaliya. shirkan oo maalinba maalinta ka dambeysa yeelanaya wejiyo cusub ayaa la filayaa saacadaha soo aadan gebi ahaanba in lasoo afmeero islamarkaana laga soo saaro warmurtiyeed. maalintii shalay shirkan waxaa ka qaybgelay gudoomiyihii hore ee baarlamaanka soomaaliya maxamed sheekh cusmaan jawaari isagoona ku biiriyey aragtidiisa ku aadan doorashada la filayo dhowaan inay ka dhacdo soomaaliya. maanta shirka waxaa ku biiray agaasimayaasha warbaahinta magaalada muqdisho iyagoo sidoo kale ku biiriyey fikirkooda ku aadan doorashada la filayo dhowaan inay ka qabsanto magaalada muqdisho. sidoo kale musharaxiinta u taagan xilka madaxweynaha soomaaliya ayaa waxa ay walaac ka muujiyeen doorashada la filayo inay ka dhacdo soomaaliya, waxaana ay sheegeen in ay ragaadin doonto musuq maasuq waa siday hadalka u dhigeen, islamarkaana ay dalbadeen in meesha laga saaro guddigii dhowaan ay magacowday dowladda federaalk soomaaliya. beesha caalamka ayay ka dalbadeen in faragelin toos ah ay ku yeelato doorashada la filayo inay ka dhacdo soomaaliya, maadaama ay musharaxiintani ay sheegeen in shakhsiyaad ka tirsan hay-ada nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka soomaaliya iyo taageerayaasha baraha bulshada madaxweyne farmaajo uu dhowaan loo soo dhisay in ay naqdaan guddiga doorashooyinka, kuwaasina walaac ka muujiyey musharaxiinta u taagan xilka madaxweynaha soomaaliya. cabdiraxmaan cabdishakuur warsame waa hogaamiyaha xisbiga wadajir ayaa dhowaan waxa uu sheegay in arintaasi ay caqabad ay ku noqon doonto hanaanka geedi u socodka doorashada soomaaliya. sidoo kale wasiirkii hore ee warfaafinta soomaaliya daahir maxamuud geyle ayaa ay ka walacsan yihiin doorashada islamarkaana laga cabsi qabo in lagu shubto. sidoo kale madaxweynihii hore ee koonfur galbeed soomaaliya shariif xasan sheekh aadan horeyna usoo noqday gudoomiyaha baarlamaanka ayaa waxaa habeenkii xalay ahaa uu sheegay in doorashada ay tahay mid la rajeynayo inay ku dhammaato wareega koowaad islamarkaana aysan aqbali doonin. waa siduu hadalka u dhigay shariif xasan sheekh aadan. culimaa udiinka soomaaliyeed ayaa ka qaybgalay kulanka weli soconaya aanan weli lasoo gabagabaynin, waxaana culimaa udiinka soomaaliyeed ay ku baaqeen in soomaaliya aanan loo horseedin colaad sokeeye ee ka dhacda soomaaliya. sidoo kale saamileyda siyaasadeed ayaa waxa ay aragtiyo kala duwan ka bixiyeen shirka ka soconaya magaalada muqdisho ee caasimada soomaaliya, iyagoona sheegay in aanan dib loo dhigin hanaanka geedu socodka nabadda dalkeena soomaaliya. haddaba waxaa laga dhoor sugayaa natiijada kama dambeysta ay ka gaaraan siyaasiyiinta iminka shirka ugu soconaya magaalada muqdisho caasimada soomaaliya. haddaba maadaama shir maalintii shanaad uga soconaya magaalada muqdisho mucaaradka kasoo horjeeda dowladda federaalka, dhanka kale ra-iisul wasaaraha soomaaliya ayaa kulamo waxa uu ka wadaa magaalada baydhabo ee gobolka baay, waxaana halkaasi kulamo uu kula yeeshay qeybaha kala duwan ee bulshada, odayaasha dhaqanka, waxgaradka, haweenka iyo maamulka koonfur galbeed. waxaana sidoo kale ra-iisul wasaaraha uu ugu baaqay mucaaradka inay isdejiyaan islamarkaana aysan dhici doonin doorasho oo ay harayso musuq maasuq, balse mucaaradka ayaa ka walaacsan. sidoo kale cabdiraxmaan cabdishakuur warsame ayaa dowladda soomaaliya gaar ahaan ra-iisul wasaaraha ugu baaqay meel dhexe ka istaago maadaama uusan ahayn musharax. waa siduu hadalka u dhigay cabdiraxmaan cabdishakuur warsame.